كان حسوق انت ما كنت قرفوا ولا وحسوق انت نسوت تاجنا ما انا كنت توكل ولي جماعه المصيبه ده مش نقدر ومن دلوقتي warwaanna la laayay maxaana lagu laayay maanta waa inaan dagaalka u hormarnaa oo safka hore istaagnaa oo hantireenna urnaa oo daabkeenna gabnaa oo nafteenna aan bannaanka u soo dhigno sidiisi mustaqbal ilmeheenna oo u yeelan lahaayeen yaanaan guryaha kuu qarsanin yaanaan soo dhawaysan waad aragteen ilxumada iyo faalxumada maalin walba aan arkayno waad aragteen waxa ummadayada lagu hayo waad aragteen waxa ilmaheena iyo haweenkeena iyo masaakiinta lagu hayo ma ahan inaan fiirsano waa inaan maxay tawiil iyo gabar iyo hooyo aabba intaan nahay aan dhaxda xiranahay inaan iska celinahay kacdoonka dhalinyarada ee Soomaaliyeed qaasatan reer Muqdisho aad ugu falceliyeen waxay noqotay mataqaanaa inay arin aad u culus oo miisaan culus leh dad dhalinyaro ah ka faa'iideysta qaraxaas markii uu dhacay kadib abaabul qaran ay sameeyeen abaabul dhalinyaro ay sameeyeen midii ugu horeysay waxay ahayd aniga waxaan maqlay dadkii aasaasay maalinkii qaraxa uu dhacay dhalinyaro 5 qof ay ahaayeen meel ay fadhiisteen habeenkii 1 saac inta dadka ay shacabka gurmanayeen meel ay fariisteen waxay u fariisteen sidee u sameynaa dadkii baaba'ay meesha ay waxyeelaha ku gaareen gurmad qaran waxa la dhaho gurmad qaran dhalinyaro sameysay ma ahan odayaal wax sameeyay ayagana kiciyeen waxa kale oo dhacday in la sameeyay abaabul badan oo xafladii daafurka dhalinyaradii kacdoonka nabadda ay jirtay sidoo kale qaraxa dadka geystay waa iska cadahay jawaabta kaliya kuma koobneen in dawladda ay ka hadasho ay dhahdo waan cambaareynaa jawaabana ka celinayna madaxweynahana oo kaliya kumuna baaqin dagaalkii uu ku baaqay isla habeenkii waxa ka jawaab celiyay ciidanka amniga dhamaantooda iyo ciidankii meesha u soo gurmaday qarax uu ka dhacay ciidanka u soo gurmaday qarax meesha ka dhacay waxay shaqeynayeen habeenkii galabka uu qarax dhacay ilaa 2 maalin anaga ka dambeysay marka shacabkii ka jawaab celiyay ciidankii ka jawaab celiyay madaxweynihii iyo dhamaan cid walba oo ay taabatay xanuun ku taabatay ka jawaab celiyay waxaa jirta dad banaystay inay dhiigga Soomaaliyeed daadiyaan maanta qof shakhsiyaad oo Soomaaliya oo ay gaar uga leexanayaan ma jirto maadaama shalay toole qarax markuu dhacay dhamaantood wax dawlad ama wax kale tuma u kala aabiyeelin shacab Soomaaliyeed ba dhamaantood ahaayeen marka shabaab iyadu waxay u haystaa in hoos ku dhac inagu sameeyay dhalinyarada Soomaaliyeed laakiin maanta waxaan leenahay hoos u dhac nagu ma imaanin inaanu jid toosan iyo wado toosan aanu ku socono aanu ka hadli karno dareenkayga ama shabaab ama wax kale taa ahaadee waxaan u maleynaa Muqdisho dhalinyarada hadii la xisaabiyo 70% waxa way dhalinyaro oo kaliya marka aniga waxaan lagu xalin karaa isleeyahay dhalinyarada hadda kacday ee u kacday kacdoonka nabadda ha noqoto ururada kale ee bulshada ee ka jiro Muqdisho ha noqoto inay isku duubnaadaan ee la shaqeeyaan qof walba degmo ka soo toosaa degmona ka shaqeeya degmadu uu ka soo tooso qaabka uu ugu warhayn karo qofka dariskiisa ah inuu ugu warhaayo qaabka uu u gudbin karo information inuu gudbiyo ayada marka waxa dhihi lahaa amniga waa la sugi karaa hadii mar walba wacyi gelin joogto ah bulshada la siiyo